su-aasheeda labaad nin dhallinyarannimo ah ayaan ku weydiinayaa wasaaradda arrimaha dibaddu waxay ka mid tahay wasaaradaha fududeeya wax u qabashada ummadda Soomaaliyeed annagu waxaan nahay dhalinyaro Soomaaliyeed jiil cusub oo fiirinaya dawlad iyo qarannimo la yiri waa midii ugu wanaagsanayd taariikhda inta wixii ka dambeeyay burburkii Soomaaliya waxaa jirta gabar ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Faa'iiso oo sheegtay inay kula kulantay gabadhaas baraha bulshada markay isticmaalaysay waxa la keeyay dalka Kenya magaalada Nairobi leefkeeda ama muuqaaladeeda waxa kamid ah markay hadlaysay dadkii ay la kulantay inuu kamid ahaa wasiirka arrimaha dibadda Yuusuf Garaad isla markaasna la rabay gabadhaas in gargaar caafimaad la weydiiyo si lamida sidaas ayaa madaxweynaha habeenood waxa arintaas uga hadlay wiil kula hadlayay gobolka Banaadir xaruntiisa waxaan rabaa wasiir maxaa gabadhaas arinteedii laga qabtay hadda Nairobi ayuu joogtaa mas'ala fududeeyo dalabkeedii ah dalka Jarmalka in loo qaado waa ma santa billahi tawfiiq salaam faa'iiza anu ma weynay sheegtay warunteedu waa saragnay anigoo xafiiska ra'iisul wasaaraha tagay oo hawl kale u tagay ayaa meesha lagu baray ayadoo wheelchair ku jirta meeshaasan ku wada hadalnay ra'iisul wasaaraha ayaa isla meeshii igu sheegay inaan visa uga raadiyo wadan hadda aanan rabin inaan wadanku ahaa sidaan ka dacwoonay ma rabin inaan sheego laakiin wadan buu yiri wadanka visa uga raadi wadankaas safiirkiisa maalintaasaan qadala lahaa markaan la qadeeyay waa hordhigay kiiskii xujooyin kalena way hordhigeen inay ii soo jawaabi doonaanna way ii sheegeen arrintiina hore uma sii qaadin mar iyo laba kale oo aan dib uga la hadalnay marka gabadhaasna waa gabar Soomaaliyeed oo wadaniyad ah oo dhibaataysan wasaarad ayna ka tirsan tahay taliska xoogga ka tirsan tahay waxay ka tirsan tahay iyo maqan xoogga u mareynay Soomaa waxay taasoo wasaaradda difaaca hoos imaanaysa ra'iisul wasaarihi baa u ordaya wax maaragtay hadda anigu aan isleeyahay waa laga hagraday ma jiraan dawladuna way jeceshahay inay wax ka qabato inta taagteed ah laakiin waxa cid kale ku xiran mar walba waa culayskooda leeyahay aad ma santeen